الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت نقصها بيرتي سودا وادا هذا الله عبد الملك الشيخ مساعدان وكستوان مقالة مقدشة هاونا تاريخ دي شرقتي صدنكي بشي سديدا دبضكون إياه تضبية وانك وهبين 4 ساعد واحد تمام يسحل لك مقالة مقدشة كودي يلا كوب يلا تنتقل. سودو هذا أنا بقول قلعة طبعا مع موضوع عنوان كيسو هاي سوماليدا لو ديبو مع إثيوبيا. إن شاء الله حرجاني يا عدكم مع واضح هاي برجاني إن شاء الله بإذن الله الكريم. عنوانك وكادر كيسين سوماليدا لو ديبو إثيوبيا. دوا سوماليدا لو ديبو إثيوبيا. هذا ما هي إثيوبيا كلو ديبو إثيوبيا. وقف صوماليا ومسلمة محن انت بدن هذا انت لقبته لو ديبو ما إثيوبيا. طبعا الحلقة بقولك استوى إن مر آدو واي براركتو وأرنكو آدو ضمقول لكن وحنا حوي مددر يسوي شيء مددر بقى مهاي سوماليدا اللي ديبي مددر بقى سوماليدا مهاي السلاني سوماليدا يضم مهاي كسو عرتي دول كودي خاصة دول كلا هايستو أو تقانين كل الكشنا قاري كم بدو يقاني أنت كسو عرنا دول كلا هايستو ودتك اللي ديبو هدانو قفكو أدون نقون وأنو إلى أدون نقون وأنو دولة مهاي لحي إثيوبيا أدون نقون وحوي ولا حرية ولا دلية ولا رباطيني dadkaasi mararka qaarkood waxa ay soo maciinsadaan dhul Soomaaliyeed ayay yimaadaan dhul Soomaaliyeed bay isugu yimaadaan halkaas ay siraadaan nolol ka raadiya dadkiinii baad u timaadeen walaaladiinii baad u timaadeen halkanaad ammaan ku haysataan waxa dhacday in la dhiibo arrin qarsoon maaha waa arrin musannada soo jir hadiyado طبق من هدية لو قولي بإثيوبيا وحوي والله فرحية إثيوبيا مركز إثيوبيا يعني هاي سياسي الصومالي مركز دون إنه إثيوبيا كفرحية وإنه قف صوماليا ولي بأكبر هدية وسياسي هاي الصومالي هي وقار كم إذا كل ود ما هي مركز دون إنه إثيوبيا كفرحية وهاي ولي بقف صوماليا مركز قال كل واحد عدد كلاديبيا ما حتى ضد يعني كتير هلجن هو بيسن وضد مساكينه dad aan waxba galabsan dad aan dagaal ba aqoon dad aan xitaa halgada ku jirin dad yani rayid ah rag iyo dumar dhalinyaro iyo odayaal aan waxba galabsan ayaa mararka qaarkood loo dhiibaa hadiyad ahaan maxaa loogu dhiibaa
hadday halgamaan iyo haddii kaleba looma kala eego xitaa haddii ay halgamaan oo ay mucaarad dowladooda ku yihiin marka aad adigu u dhiibaysid Soomaali kale Ethiopia u dhiibaysid adiga kuwa ku dhibaataynaya ee Ethiopiaanka ee xagga jooga ama Soomaalida ma ku dhiibayaan Ethiopia ma dadkeeda ma soo dhiibtaa dad iyagu Ethiopian xabashiya xagga ma laga soo dhiibaa oo ma la keenaa oo madaxda Soomaalida ma loo dhiibaa anu ma garanayo wax loo dhiibay anu ma garanayo yani muxuu wax loo dhiibay anu ma garanayo yani runtii waxyaabo muxuu aad looga xumaado weeyaan waxyaabo muxuu aan ku tilmaami karno in qofka Soomaaliga la dhiibo wax aad u foolxun weeyaan aad u foolxumo wuu dhaafay marka waxa isweydiin leh hadaynu ka hadallo oo ka aamusmayno runtii cidna ka haybadaysan mayno cidna uga baqan mayno ninkii ugu dambeeyay dhacdadii ugu dambeysay ay dadku ay ka hadlayaan waxa weeye nin la yiraahdo Cabdikariim Sheekh Muuse oo lagu naanayso qalbi dhagax ayaa waxana soo gaadhaya warar sheegaya in ninka Soomaaliga in Ethiopia gacanta loo galiyay wararkaas la daabacaya warbaahintu ay daabacaysa ay qoraysa marka ninka Soomaaliga ee lagu sheegayo warbaahintu waxa qoraysa inuu ka tirsan yahay jabhadan hubaysan ee mucaaradka ku ah Ethiopia iyo kuwa Soomaalida ah ee dabadhilifka ah ee ka taliya dhulka la haysto intaaba mucaarad bay ku yihiin marka ninkaas ayaa loo dhiibay ayay warbaahintu qoraysaa Ethiopia loo dhiibay waxa su'aal baa meesha isweydiin mudan ninka yaa loo dhiibay yaa dhiibay maxaa loo dhiibay haddii ninkaa la dhiibay yaa loo dhiibay ninka Soomaaliga yaa loo dhiibay yaa dhiibay maxaa loo dhiibay haddii aynu ka nimaadno aynu xabad u qaadno waxa wararku ay noo sheegayaan in Ethiopia loo dhiibay qalbi dhagax yaa loo dhiibay Ethiopia loo dhiibay ay wararku sheegayaan yaa dhiibay waata aanu doonayno jawaabteeda cidda dhiibtay jawaabteeda waata aanu rabno warar baa la daabacayaa la qorayaa wararkaas waa in laga jawaabaa in la laga aamusi maayo caawa ku ekaan mayno inaan muxuu toos soo galo waxa weeye Soomaali way ka hadlaysaa yaa dhiibay maxaa loo dhiibay sharciga baa loo maray marka la dhiibay qof Soomaali Ethiopian loo dhiibay waa in laga jawaabaa waa inay ka jawaabtaa cidda ay khusaysaa mas'uuliyadda waa inay ka jawaabtaa oo ay warbaahinta kala hadashaa shacabka markay la hadlayso waa in warbaahinta soo maraysaa shacabkuna u diyaarin dhageystaan waa in laga jaahil saaraa haddii ay cidda ay khusaysaa ka aamusto idan iyada dhiibtay haddii ay aamusto oo aamuskeedu sii bato waxa weeye waxa aan u arkaynaa in ay yani cidda ay khusaysaa iyadu dhiibtay qalbi dhagax Ethiopia u dhiibtay marka waxa weeye jawaab cad baa la sugayaa shacabku way sugayaan shacabku aamusi maayaan ma ogolaanayaan in marba mid la cuno haddii ay ogolaadaanna iyaga loo imanaya qof kasta gurigiisa loogu soo galaya mid shacaba mid xukuumadda ka shaqeeya mid aan ka shaqeyn mid shiikha mid aan shiikh ahayn mid heesa mid aan heesin mid loo heeso intaba xabad loogu dhiibaya maalinta la doono saddexdii dibi marba mid baa la cunaya haddii ay aamusaan shacabku waxa weeye maalintii qalbi dhagax la cunay
ayaa anigana leeyahay baa ka dhacaysa marka isagana la qabanayo runtii waxa weeye intaas oo dhan waxa weeye maalmahan oo dhan waa la daabacayay waxa weeye cid ay khusaysana anigu ilaa iyo imika jawaab cad kama hayo jawaabna muxuu ahaa waa ka sugan qof kasta oo muxuu ahaa damiir leh aad ayuu uga xun yahay in qof Soomaaliya oo aynu ognahay meesha la geynayo in la dhiibo oo loo dhiibo Ethiopia jigjiga Ethiopia dhulka la haysto ee Soomaaliyeed gaar ahaan jigjiga aan dul istaagay waxa ku yaala jeel caana oo sumcadiisu xun tahay oo dadka lagu dilo lagu cadaabo lagu dhibaateeyo oo loo yaqaano jeel ogaadeen aswa sajin aan maqlo jeelal badan baan caalamka ka maqlay aad la isugu dhibaateeyo kii ugu liitay aan maqlo waxa weeye jeel ogaadeen mararka qaarkood waxaa tegaysa dad Soomaaliyeed ayaa tegaya halka oo aan ka hadlayn dad Soomaaliyeed dhaanta laga soo ciyaaraya aaga jeelkaas oo la soo noqonaya jeelkaas waynu ognahay dadka in lagu dilo jeelka waynu ognahay dadka in lagu dhibaateeyo qofka galaa waxa weeye waynu ognahay sida loogu dhibaateeyo weydiiya dadkii ka soo baxay waad helaysaan way joogaan dacallada caalamka way joogaan halkanayna la joogaan weydiiya dhibta halka ka jirta waxa weeye macruuf jeelkaas marka ninka Ethiopia loo dhiibayay wallahi waxa uga wanaagsanayd iyagoo dilaba saasaan u arkaa iyagoo Soomaaligaas yani khaarijiya oo Soomaaliga khaarijiya intaan Ethiopianka u dhiibay sababtoo ah waxa ka dambeeyay in ognahay waxa weeye wana la mashqaynaya wana la ku eegaya waxaan idin sheegayaa cadowgeenu ma aha Ethiopian kaliya ma aha cadowgeenu waxa weeye dad Soomaaliya oo inala jooga oo inagu dhex jira oo shaqooyinkii haya oo laga filayay inay dadkooda iyo dalkooda daacad u noqdaan laakiin aan daacad ahayn way weliba meel sare baa ka eegin waxa weeye waa shaqaale hoosaad meel hoose yar shaqooyin yar bay haystaan hoose laakiin amarka kama qaataan maxay dalkooda iyo madaxdooda meel kale laga amraya soo dhiib waxa laga yaabaa inuu adiga ku yahay meel ku hayo inuu agaasimo wasaaradeed yahay inuu yahay wasiir ku xigeen yahay inuu saldhig boolis haysto inuu taliye ku xigeen yahay inuu laan haysto meel inuu gudoomiye gobol yahay ku xigeenkiisa oo kale dad noocaasa oo aan ku shaqayn baa jira oo maanta oo dhan maxay wadani matalaya wadani baan ahay laakiin hoosta maxay kala shaqeeya Ethiopia iyo cadowga iyo mukhaabaraadka danaha mukhaabaraadka sirdoonada caalamka oo dhan la shaqeeya ayaa jira marka meel kale ha ka raadin cadowga waxa weeye wuu inagu dhex jiraa way dhex marayaan meel kasta way dhex marayaan dhulka Soomaaliyeed way dhex marayaan waxaan u taqaanaa wadani Soomaali buu ogyahay isaga waxa laga yaabaa inaad iska ilaalin oo meel kale waxa laga yaabaa inaad isaga iska ilaalin oo meel kale iska ilaalin laakiin hum العدو iyaga cadow faxdarhum iska jir aad iyo aad baan uga xunnahay haddii ay sheekadani dhabowdo waxayna u badan tahay inay dhab tahay hadday sheekadani dhabowdo waxa weeye fal xun taariikh madow oo isqortay in qof Soomaaliya la dhibo maaha markii ugu horeysay ee dad Soomaaliyeed loo dhiibay Ethiopia waxa weeye marar badan ayaa loo dhiibay waxa isweydiin leh sharcigeebaa loo maray waxa laga yaabaa inay soo baxaan oo ay dhacdaba in la dhiibay oo aynu akhriyaan sharci oo yiraahdaan sharciga noocaasa waxa noocaasa jira waxa weeye arrinka waa in ka digtoonaana ha dhowto jawaabo muqnic ayaan la ku qancin jawaabo aan muqnic ahaan ayaan la ku qancin oo loo maxay dadka maxay cuquushooda la hadayo oo lagu dajinayo xaaladdeedu mana deganaanayso ilaa jawaabaan helo حتى هدي أي دعوة إنك اللي بي وحوي وحنو ضربنا إن إلا سعودي
أنا واحد في ليا الاسمه جبا تظهر هوسي أيام بشقيسني اسمه جبا مدح دي سر مو جبا أنا ملاني أنا مدح دي سر مو جبا نسلاي هاي بدي وحوي وحنو ملاني إن هوسينا شقيسني صوبته وحن مغلي بقى ماشي لقى سوق أبطي سيدا أي ورق شيء يعني نيك قلب دقة وحوي وح لقى سوق أبطي قلب مذوب بقى لقى سوق أبطي إذا ماذا قلب مذوب بقى عن تكوهي مرقورة أيا للسو هذه نبت سجد أيا للسو هذه بلا شيء وسيدا ورق شيء كدبنا ديارات بقى لقى صار هلك وحهر كعي أمل للسعودي مدح سرا للسعودي ماملو متليسي فحلو راعي بيردبا ما هي ديارات الجسي وليبا بيردا بسلك أي كلهم إثيوبيا أي لدتشي سيدا ورك شيء أي تباح ورك طبعا تكتشوا بقى كهلا ورك واحد شيء سلك بالجود دتشي وقال بيردا أحمد سلك بالجود دتشي مقدش أنا لا قاضي مركي ورا فحنا لا وصي قاضي بيردا بقى وحلا قصي قاضي سلك أي إثيوبيا كلهم أي لا قصي قاضي فحنا لقي دول كله هيستو هي إثيوبيا إن كان كسكسوية بالشيء جوابها وحوي أرمها الله ضابع يعني ما هي لقريو تعد خصيصة وين كتوابتها ومهم جدا وين كتوابتها مهم جدا وين كتوابتها وين النقن عيسى وين النقن عيسى ما مصينو تشاب كمتشرنا ضدك تشاب كمتشران ضدك ما هي حوي اللي قد يكرم مايو من قبيايا والله يلا هذا محمود الزبيري هو يمني أهل جماعة رجعوا أهل جمي يمن أو دول مديدها أيا قبي عانا أيولي هاي أقول لك تدرك سيادة أو قبي ما كمعروف ما هي شعر كعربي معاصر وحو كب الأبيض سجل مكانك في التاريخ يا قلم سجل مكانك في التاريخ يا قلم فها هنا تبعث الأجيال والأمم هنا البراكين هبت من مضاجعها تضغي وتكتسح الطاغي وتلتهم شعب تفلت من أغلال قاهره حرا فأجفل عنه الظلم والظلم نبع عن السجن ثم ارتد يهدمه كي لا تكبل فيه بعده قدم إن القيود التي كانت على قدمي صارت سهاما من السجان تنتقم إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغي لها الأمم والحق يبدأ في آهات مكتئب وينتهي بزئير ملؤه النقب جودوا بأنفسكم للحق واتحدوا في حزبه وثقوا بالله واعتصموا لم يبق للظالمين اليوم من وزر إلا أنوف ذليلات ستنحطم لم يبق للظالمين اليوم من وزر إلا أنوف ذليلات ستنحطم والشعب لو كان حيا ما استخف به فرد ولا عاث فيه الظالم النيم إن الغزاة وإن كانوا جبابرة لهم قلوب من الأطفال تنهزم ها هم الجبابرة مهما كانوا جبابرة الغزاة لهم قلوب من الأطفال تنهزم والشعب شاهد كماشو حوي قبل شاهد كيس انت بدنيه نحر حكمت بدن بو حنبارسنيه قبل قاس وحا لكن ابي سوتشي دتي وحو كله والشعب لو كان حيا ما استخف به فرد ولا عاث فيه الظالم النهم شعبك هدو يهي من نور والشعب لو كان حيا ما استخف به مو يريستين شعبك هدو يهي من نور مو يريستين قفي فرد قف قرا مو يريستين ولا عاث فيه الظالم النهم كمانو دردريين كمانو كبرين ظالمك بهلك يا عناقه كمو دردريين وهدو شعبك نوليا ظالمك ساكا مو يرى شعبك هدو نوليا لكن شعبك بختيا ما نبى بتبالغ هذا غالبات كتاي حلقة يا بامركت كانت كوريك تهين الدبقتي بس ككلنا تلاعب حوام حاجة قلي مركزو كسو قبقبين يا وحكوليه إن الغزاة وإن كانوا جبابرة هداي بواوين كوا صوير رأي طول ميجا كصوير رأ هداي بيهين كوا واوين أو مقدام كوا واوين أو كبر بدن لكن وحليه لهم قلوب من الأطفال تنهزم وحليه قلب عرور تشبيه أو هاي قلبي كتشبيه أي لين مركا
شعبو إذن كان نولين شعبو إذن كان نولين لبعد هو أي صومالي ولا هاي وحوي وقبيلك أي إثيوبيا قبيلك أي إذن كرجع هذه إثيوبيا أي إذن كقبطي يا إذن كوك على قيب نيسا يا أخي وحوي مؤامرات بسعوتها مؤامرات بالعرب كسعوتها ضد كان شعب كان مؤامرات بالعرب كسعوتها الله يكون في عونه وحوي وحن كسوق بجبينية وحن كسوق بجبينية مرة إيرانية موضوعي وحوي وحن تاجنا هي قلبي دقح يا ديبي يا لو ديبي محل لو ديبي تاسان تاجنا هي ويديما جوابان وبهنا سي بخسابا جوابا عدة أي خصيصة وين كجوابتها عدنا كجاي بديس منه عدنا هو بيل منه عدنا هو بقي منه وحويه قلب دقح يا ديبي محل لو ديبي يا لو ديبي والسيدة ديبتان بان إلا إمك وربعينتو أي دابعيسا ورقيسيدو أي دابعيا براها برشادة لقاقا هذا سوى الردي سيبالا صورتك إياه marka waxa weeye jawaabaan u baahanahay mana ogolin insha Allah tani waa qaybtii ugu horeysay aan kaga hadlaynay Soomaalida maxay loo dhiibo maxay Ethiopia runtii manaha qalbi dhagaxkii ugu horeeyay wuxuu noqonayaa boqolaal bal kumanaan ayaa ka horeeyay oo si fudud yani hadiyad loo dhiibay intaas ayaan ku gabagabeynaya waxaana idin hadlayay عبد الملك الشيخ مسعود دون أو كسبان مقالة مقدشو تاريخ ذو عاوة وصدق كي بشي سديدات لبضل كون يو تطبية طبنكا وحنوتي هذا كون يتطور بقول أوقف أو يداون يقاد بدل ما سنتي إن شاء الله هو وينو يبرئ يهبين ضب يوحي كسر عصبون هذا أرنكا روح لقيها بأين وحي لاوي لكن إن شاء الله كلن كله أين ولا نهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته